kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xalay waxay weerar ku qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil goobaha kaydka shidaalka ee magaalada Tahraan dhankeeda galbeed ku yaala. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay burburiyeen haamihii shidaalka ugu kaydsanaa militariga Iiraan. waxaa isqabsaday dab iyo qiid magaalada Tahraan. saacad kama soo wareeganin waxa iyana daakum laga dhigay haamihii kaydka shidaalka magaalada Haifa ee Israa'iil oo iyaduna gantaalaha iyo droniska Israa'iil ay markaa qararamsadeen dhagaha laga garaacay. waa la isu baasay, halkana la duqeeyay, wax yar kadib halkana la holciyay. waa su'aal iyo jawaab. haddaba aanad tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray sheekadan. Israa'iil waxay bartilmaameedsatay haamaha shidaalka magaalada Tahraan. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraanna waxay duqeeyeen oo iyaguna baabi'iyeen meelihii shidaalka lagu kaydinayay ee magaalada Haifa ayay iyaguna weerar culus ku qaadeen. ma ujeedaa waa saasaa la iskugu baasay. waxaa sidoo kale xalay dhacay duqeymo culus oo Israa'iil ka dhacay. Xisbullah waxay weerartay Haifa, Tel Aviv, Iiraan way weerartay. waa la isugu daray kooxihii markaa iyaguna ciraaqiyiinta warkoodii waa diin hayaa, waa noo soo socdaa. dhanka kale waxaa weeraro lagu qaaday Kuwait. waxay sheegtay meel lagu kaydinayay shidaalka eeraboorka magaalada Kuwait in diyaarad daroon ay ku dhacday, iyaduna dabkaasaa cirkaas maray. sacuudigu waxay sheegeen xaafadda diblomaasiyiinta xaafad la yiraahdo magaalada Riyaad in iyana diyaarad daroona ay ku dhacday. sidoo kale waxay sheegeen Qatar iyo Imaaraadku iyaguna weeraro inay ka hortageen. Bahrain iyaduna waaba ku laalaabataa Iiraan. haddaba maxaa isbedelay? sheekadu maxay noqotay? ma waxaa jira in weeraro looga soo qaaday khaliijka? haddaba wararkaas iyana waan idiin soo gudbin doonaa, laakiin marka hore waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegay in la soo saaray dukumenti sir ah oo la yaab noqday. haddaba hay-adaha sirdoonka Mareykanku waxay la yaaban yihiin hadallada iyo waxa uu sheeganayo Trump iyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta fagaaraha Iiraan. ma ujeedaa? hay-adaha sirdoonka Mareykanka waxaa leeyahay inay markaa arrinka ay sheegayaan. haddaba warbixinta marka way sii socotay. waxaa leeyahay warbixin sir ah oo ay soo saareen golaha sirdoonka qaranka Mareykanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano NIC ayaa waxay sheegeen inay aad ula yaaban yihiin hadallada aqalka cad ka imanaya, kuwaasoo khilaafsan sida ay sheegeen waaqaca dhabta ah ee ka jira halkaas. waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah in markaa uu Trump sheegayo in ay isdhiibto Iiraan. haddaba warbixintan waxaa soo heshay jariirada Mareykanka la yiraahdo Washington Post. qoladan golaha sirdoonka istikhbaaraadka qaranka la yiraahdo Mareykanka waxay yiraahdeen waxaan la yaabanahay hadallada ka soo burqanaya aqalka cad. waa Trump ha isdhiibaano. ayatullaahiga markay samaynayaan waa inaan aniga ogolahay. Iiraan marka dagaalku joogsado ma damaanad ma awoodi karo in maaragtay in laysku sii haynayo Iiraan oo markaa la kala goynayo. waxaa sheegaya waxay dhaheen wuxuu khilaafsan tahay hadalkaas waaqaca dhabta ah xaaladda lagu jiro. ninkaa waa iska ciyaaraya. meesha waxa ka jira uusan warba u hayn, uu iska hadlaa. waaqaca dhabtaa meesha un jugtaana laku hayaa taagi. marka sheekadaas waa soo dustay. joornaalka Mareykanka ayaa isaguna banaanka keenay Washington Post. qoladan warkoodii ayaa la soo helay. dhanka kale waxyaabaha la yaab kale, Trump wuxuu ka qayb galay aaska askar 6 lagu sheegay oo ku soo dhimatay dagaalka Iiraan. isaga iyo Witkoff iyo xaaskiisa iyo wixii oo dhan iyo meeshay tageen. hadal uu ka jeediyay. hadalkaas dhowr qodob oo muhiim ah ayaan ka nood gareeyay. wuxuu leeyahay marka hore askarta iyo arrimahoodu ka hadlay, kadibna wuxuu ka hadlay Ingiriiska maraakiib uu noo soo diro dhacay hadeer.
maraan anagu adkaanay kulaa oo maraakiib noo soo diraa ma u baahnin maraakiibtiisa ingiriisku dhaa maraakiib ingiriiska Soomaaliya waxaan diraynaa maraakiib diyaaradaha xambaara marka maba u baahnin oo dhaa ingiriiska wixii maba u baahnin macnaa nin u xanaaqsan camal ingiriiska muxuu dagaalka noola gali waayay halkaas uu dhigay waxa uu ka hadlay arinta Ruushka wuxuu yiri Ruushka ma u malaynayo inay kula hub siiyeen Iran laakiin haddii ay siiyeen arin fiican ma Ruushka waxa ma ka sheegi karo dalkan uu ku boodboodayo camal ma aha ninkan la leeyahay Putin isagu way shaqaalaan marka hawshaas uu isaguna qabtay ninkaas ayaa la leeyahay haddaba warka xiisaha leh maantay warbaahinta oo dhan ay ka hadlayso Mareykanku kura uu barkiiba ka soo jawaabay muxuu yahay xogayaha amniga qaranka Iran ninka la yiraahdo Ali Larijani ayaa hadal sii daay علي لارجاني يا علي شمخاني يا كلاين علي شمخاني يا علي لارجاني وصاحب بدأ آية الله هيك دنتي واي نك شمخاني الله وحو بلد انت آية الله هيك كنا ورجع ووين كجرا وحجيها أمني قرنك برك نك وحو يري بريك وحو ربها شيء يقول أسكر نول عن كينا أسكر نول عن قبلني وعيود بايتي شوي دير حجال وقبت من نمكي كرتين تماشي جري أيو مريكان انت تجعل وقبت حاجة قبتين على سكوايا مركبة مركا تلس كان إذا ماذا بريكك أيها لسه بودي وحير وركاس وحكي ترى مجران وابين وعارك الدوتينوي أسكر نول هاي نور أسكر نول تردو دموس الشيء هذا مركا أنا دي تصو وركي جوا وين عشان كذا إيران لقى قري إيران وحي سر رسمي أو شيكتي إني قبصدين أو عيهيان أسكر مريكان واشنطن ويبينينيسا هذا الكاس حقيقها جود قولها سراء أمنية قرنك إيران علي لارجاني أيها حالي وحو شيغي عدد أما تيرو كترسن إذا ماذا مريكنكا إني قعنتو ذا سوق الشيء أو أي قبتين إنك استو تالس كان إذا ماذا مريكن كنا أي مركبة وركاس بينينيان والله يسايا أسكران قبنو لي أسكر أيان قعنت كردقني أو آن قبني وان حيناو لي مركا نكاسو للعادي يبا هوشاس مركا هالكاسي آدي وحلو قد بينا ووركا كالي أو عصب إسنا كمدا رئيس الوزارة إسرائيل أيا قطبض لغا صوت أو تلفزيون كالغا سيداي حالي وحولي حالكو وكاس حرب القيامة أنكو جرنا قيامه دقال كيسي أنكو جرنا معناه قيامه وحواه دقال كي ووينا هدان قولي سنو قريدة بريقا نحو يسبدليسا هدي لقا قولي استنا كما هضلو مركو حولي هاي هلا تستاقروا إيران وركين يديدي آية الله هيك واحد وشيء إنه بين أمودي مركا واكاس سجي وعني ساسا يلني كنا يلني لكن واحد يدي شيء قوي حرب القيامة كجرنا ماشاس نار ما بغلي جرت نار كسعت باش نترياه واقري حرب القيامة حرب القيامة كسعت باش مركباش إلي سن عيار هاي ترى بنوعو كلية هاي سديبين وكان هاي سديبين محل لي سديبا باشا سديبت باتال حرب القيامة الوجراي أي تصو برك نتنياهو وركيسة تلفزيون كالجزيرة وحويري نتنياهو وحو شاقي دقالك أي كترانينو يهي حرب القيامة وحاسوه كلا هاي سناو يرى قرشة أينو كغا تخلصي كرنو نظام كإيران لكابو جدا حرب القيامة الوجراوي ما شاسوا لا يسكركرين يا نار واي نار تاسا صعت باش محلى يسون حريجرا بشر بجران marka meesha maxaynu ka ogaanaynaa anagu de meesha ma joogno laakiin wararka markii la fiiriyo maxaan ogaanaynaa in meesha aysan xaaladu sahlanayn marka taraama gabgable wuxuu sheegay xataa waxa ku qabsaday golihiisii sirdoonka waxay raadeen aqalka cad wararka ka soo baxa war waaqaca dhabta ah ee ka jira fagaaraha kama turjumayeen ninka iska hadlay marka meesha maxaa kaga muuqda
باش والله كله لي إيران جوكتو والوهايا ألكن أيدنا جوكتي كويسة مال في يوم مركب باش بجرت وركلو عصبة سيدا ساكي صورعي warbaahintii Israa'iil saaki waxay leeyihiin xogaha laga helay Yemen waxay sheegayaan dhaqdhaqaaq xoog leh inuu ka jiro dhanka Xuutiga waxaanse ka baqaynaa Xuuti Hezbollah iyo Iran fi aanin waahid hal mar inayna soo wada weeraraan annagoo hadda gantaalaheenu in dhoolayaal yihiin oo tacbaana Xuutina inuu nagu bilaabo qiyaamihii uu sheegay oo run ah ayaa la galayaa marka intaana warbixinta galin waxaan rabaa nin la wareystay oo Imaad al-Yusuf ma leeyahay Imaad al-Leeyahay Yemani waa khabiir ah nin Yemani ah oo khabiir ah ragii hore ah ayaa Al-Jazeera wareysatay marka waxa la weydiiyay Xuuti awalay Xuuti dagaalka muxuu u soo gali waay ninka marka war oo aad ula yaabo ku hadlay ninkii marka wuxuu yiri وأننا خبير يا ميلتري وخبير ميلتري وخبير ومارتي دقالي وحن ما مجان مركي حبط صوت خبير ميلتري على ورسرة مركي دقالتها خبير دقالة على ورسرة مركي ساينس تا خبير دنا ساينس مركي ما قال كريه نكر مركي وحوي عماذا لنا جنرال هروها يمنية دولة دي علي عبد الله صالح رجي أضياش أواي وحال حوتي وحوي هبكا وهيستان حزب الله مثل هيستان كوا بداس dagaalka maxay soo gali waayeen arin marka la yaab loo sheegay wuxuu yiri dagaalka waxay soo gali waayeen Xuuti waardiyaha ayaan Al-Jazeera yaabt hal baxay waardiyeeyaan ma maraakiibta badda taalab ma yeedeen wax ka daran waardiyeeyaan kula baxay waardiyeeyaan nimankan carabta u yiri Sacuudiga Imaaraadka Qatar Bahrain Kuwait inaysan hal mar u dhaqaaqin Iran maaragteen ها نمكن عرب ويري لما في لا استعوني سو مدفع إسكتورة يا هدي ربان لكن دبر كودا لجوجاور وأنا إيش يقانانو يرأيه حوتيا دجال كي سعودي إيو حلفدي سو إمارات وكتيرين إيو حوتيا مركز دجال حوتي وحبوا كقاضي وين إلى ماليه شرالك إيو أبو دبي إيو دبي أي حوتي والديارات الدرونة نكتو وقاضين إلى مركز دب إيران لبريه اللي نجا مسين نمكان شو مركز راعد الريب عربت انت اللي جوكينايو هدي لعل دغالك سو غلان way iska dhici kartaa inay inta dagaalka soo galaan Mareykan soo raacaan ee Iran soo aadaan waxa ku dhacay marka Xuutigu marka waxa la rabaa alaabtiisa inuu dhabarka kaga keenaan raba dhabarka inuu kaga keen marka wuxuu yiri aniga waxay la tahay Xuuti saasuuba dagaalka ugu jiraa nimankan waardiyeeno arwaakaas Sacuudi oo dhankaas u dhaqaa إمارات ودنكاس ودقاق أنت مريكان يسكو كاسو والاد عروا كاس بحريني وحكرد نوال بالديارات وايستا قنتال وايستا مريدي كرا قداشي سالة جوغا وحاكدرانو يري مراكيبتا إيران وايستا فلانتها بدا جوغان لكن نما كان دقال هادين كسو بلارتو او دولكودا اي فصحان او كالاي توس او كويرر هالكا ينادان او ميش marka ay laftirkooda inay seexdaan ay rabaan carabtan hurdaan qaraac ma rabaan ninkaas caadi ba wuxuu yiri ninka amiirka ama ninka boqoraan ahayle meelu nabad ku seexdo rabaa hadda Iran guryahooda ba aadooy xay diblomaasi Mareykan isaas u raadsanaysa saldhigyadiisa hoteelka uu degan yahay saas u daba socotaa saldhigyadiisa raadinaysa hadda wax ku socdaan maalintii dagaalan galaynaa dhahan ninkii safaaradda Mareykanka waardiyay way safaaradiisa waardiyaysa way saldhigyadiisa waardiyaysa way ma aqalka boqortooyada waardiyeynay boqor badan oo kabaha ka carraa la arkaa wallahi ninkaas waa iga qosriye baad ninkaas caadi waa khabiir caadi baalmaar oo dhan waxa isweydiinayne war Xuutigu muxuu dagaalka u gali lahay ilaa ninkaas wuxuu sheegay wax caadi ma hadaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay ka Xuutiga laga qoray warbaahinta cibriga waxay sheegeen in marka dhaqdhaqaaq dhanka gantaalaha ah ay ka socdaan oo marka la diyaariyay sidii loo soo ridi lahaa bas ay dhiman tahay Yemen Israa'iil heegan buuxa ay gashay iyadoo ka baqaysa weerar dhinacyo kala duwan ah inuu ku soo fool leeyahay saacadaha soo socda weerar dhinacyo kala duwan Xuuti Iran Hezbollah marka sheekadaasu iyaduna wararkii cusbaa ee soo kordhay ay ka bitaay